وقيبت اللبات قيبت هرو وحن كجا هذلني أرميه أموشة يصير عادة هنجرتي قيبت اللبات وحن وجود قلنا جوركي سيدا عادي باديها أما ميجا دمرك أنت هذا بدو حال جورسين جري أيقو عاد وير حليا كلا ددونا ولا صام مري ويجرتي بري هرين دمر لده أو مركي رك وين ديجان كيجوان لوين جري أو جور دورين جري ولا شيء جري لكن أنت بدن ما يدعي جرين ما ديجان هذا قار كميس جرين أرنتاس مركا واحد جرتا سيدا عادي ويلك يا جبدة ويلك أيها حساوات تجا أما شوكانسي تجا أنت بدن سدح مال سدح سيابات ويلك جبد إسكو أركي كرين مدة كوباد ودودة أما ماشي بيها عيلك بيها لقى عبو إنه ويلك جبد إسكو أركه أيضا داون ودنا وصرعه أو سيدا الله الله تلابات وإن ويلك جبد ورير كود إماده إلا ذا أوفريستو هدو هو يدي أباها كبقايا أما ريرك كعبسنايو حلي هبيني ما أقل كإماده سنك قبته أما ضعك عندك جلي وقندوفته سيدا أي أوسو بحضه أي بنانك كرو بحانو يهلك كودا حسابان أما كوشا كستان وليبا جيتك جبد دينا بي كفريسنيسا way kada loobsanaysa kada loobku inaad labada lugood labada cagood ku istaa ku fariisato inaad salka dhulka saarto maaha dhanka kalena wiilka uu labada cagood dhulka saaro uu inta u sii jeesto haday lacala fariistaan oo xamaartaan ama dhulka ay raadkooda ayagoo fariisteen oo lugaha fitfitsadeen oo la arko meesha shukaansi kama dhicin hooyada salaad way soo fiirin meesha wax kale ayaa ka dhacay oo aan shukaansi ahayn inagu galmi iyo waxba looga shakin jiray marka gabadha inay gabadhan daahir tahay ama wiilkan iyo gabadhan ay shukaansi bas isku yimaadeen waxa waalidka ay ku ogaan jireen fadhiga asaga kada loobka meeshii ay kada loobsatay ayaa loogu imaan jiray waxa kale oo meesha laga fahmi karaa inay gabadha caafimaad qabtay muddo dheer kada loobi kartay in kale ayaa meesha laga ogaan jiray waxa kale oo wiilka uu ogaan jiray oo intuu cidda soo galin intuu cidlada ku jiro ee cidda inta laga seexanayo uu sugayo wuxuu qiimeyn jiray gabadha maqaylisooyba gabadha ma in la adeegsado ma dhaga nugushahay xoolaha ma u roon tahay ma tabi haysaa ma qasha ma ayada ariga ku daysay looda ma ayada maasha geela ma ayada nirgaha ka xareysa macnaha hawsha iyo cidda waxyaabaha kaga haboon gabadhan ma tahay mid xifdisay oo howlkar ah oo hadduu guursado naag kabto oo hawsha la qabata ma tahay waxyaabahaas wuxuu ku ogaan jiray intuu cidlada fadhiyo marar qaar khasama inuu cidda soo galo ama uu shukaansadaba cidladu soo galaya meeshaasuu fadhinaya hadday gabadhan inay qaylisooy tahay oo habaar badan tahay oo xoolaha jugeen oo ay tahay halkaas ayuu ka noqon jiray danka mugan gabar kale u raadsan jiray marka waa nooca labaad waa inuu meesha gabadhu aqalkooda ugu imaado oo saa sameeyo nooca saddexaad waa in ciyaaraha sida saarka dhaantada ama habeenkii ciyaaraha la ciyaaro inta badan habeenada la ciyaaro in wiilka gabadha midka marka hawada hayso ayaa isku dubaridi jiro ciyaarta sabab u aan jiray ama shooga asaga qaban jiray shooga miiga iyagiisaas ku fahmaysan hadda asaga ciyaarta saar buu xiray ama dhaanto xiray baa la dhihi jiray ciyaarta habeenkii la tunto ayuu maxaa la dhihi jiray yuu qabani markay isku duba dhacdo dadka marqaamaan oo sacabka isku dhacayba marka qanjidhoofan markaasuu qandhoofan ama gabadhi u baaqi oo ay u soo bixiyo oo sidaas uu ku shukaansan waa saddexda nooc waxaa kaloo jirta inuu wiilkan marti ahaaba ama xoolada daydayay oo macnaha uu asoo marti ah cidda laga marti qaaday gabadhan socodkeeda iyo howlkarnimadeeda iyo waxaan uu ka helay oo marka uu sidaa ku jeclaadaba xataa waxaa dhacday in habeen mugdi ah ninkan uu marti qoys kale oo dariska ah uu soo martiyay gabadhan gabdhaha oo iska heesan kuwa qaar way iska cod qurxan yihiin codkeedaba uu sidaa uu cishqi ama jacayl ku galo marka waxaa marka la yaab leh gabdhihii qiimaha lahaa sidaas iyo wiilasha isku heli jireen inay maanta waxyaabo badan ay halaabeen oo maxaa la dhihi jiray dhaqankeena u bedelmay midda marka igu khasabtay inaan arrintan ka hadlo waxaa la yaab leh nin baa gabar laga soo dooni rabaa sida dhaqanka ahaan jiray ninka wuxuu sameyn jiray martiqaadka asaga lagu lahaa xoolaha uu dhiganayana gabadhan raggan u soo geed fariistay baa yaa bixin jiray ama waxay keeni jireen hantidii gabadhan waxa la dhihi jiray tuugmo anaga deegaanka aan joogo waxa la keeni jiray
انت بدن راشين يوحساس يا أربع يوحبا لكين جري ولا صوت توجه هبل توج ما هبل ولا صوت توجه يجري لكن واحد لو صوت توجه بدن وحابة كب حجري ونك خرج كبدن أو نيف بوغلي جري أو مرتقاد وين بوسمين جري وحمرك الله يابله نين جبر إنه كاسو دونه بريان دم دقن كسون نقطة أو أنتي لو علليه هاي ما جبر بقى هلو أذر السلام عليكم وعليكم السلام وحنا هاي غير سا ريه بالله جبر هذا أيان أسوق جيت فريسر ربنا أما كاسو توقي ربنا وضيال بكوسو وجهان مالك أي مالك وحلليه مركه جبر دي بقى أنت وعد نينكي يا وحلله مرتقات كل مرتقات لها وحي لقوا مرتقات لها صدر صعب معها وح لقى يقصد معها صعب ما أنت تاجن معها wax reer aad xidid rabtaan oo gabadhaadi aad siin rabto in wixii aad ku martaqaadi lahayd uu ninka soo diro maanta soo ceebna haysato maaha maanta soo ceeb maaha in reer aad adiga ka soo jeedo ama deegaanka aad ka soo jeeday haddaad adiga oo shaqo u jeeda aad tagto ama aad safar ahaan ku tagto dadka martida ah waa lala ordi jiray gacanta intii la qabto lala ordo yaa intii la fariisiyo oo shaah la siiyo yaa kalgacayl la tusi jiray hadda adiga baa lagu shaxaadi qofkii martida ahaa yaa la shaxaadiba hay'adda hada magaalo ka imaatay noo dhib wax ma haysaa maanta noo dhib caada annaga aan leenana ma aha dhaqankeennana ma aha wax yacni laba ah oo waxyaabihiina lagu burburiyey ka mid ah oo si kasta society bulsho ahaan si kasta aan u burburnay bay ka mid tahay waxaa kale oo ayadana in la taabto aad u mudan in wiilka gabadha ay ilma adeerka yihiin ilma abtiga yihiin ilma eedada yihiin qaraabada hoose ay yihiin 3 4 2 ay soo kala tirsadaan in xitaa masaafo ilaa iyo 300 oo kilomitir haday la socoto haday 30 habeen la seexato haday 3 saacadood la joogto haday saacad meel la joogto laga shakin jirin hawa ka qaban jirin walaashi macaan ay ahayd waliba ayada oo hadda wayba asturan yihiin aan asturneen oo madaxooda banaan yahay oo laga yaabo girxirka ay qabto in jirkeeda qaybo cawrada ka mid ah banaanka taala laga yaabo aan hawo ka qaban jirin haddana wallahi waxa laga shaki qaba oo laga cabsanaya kuwii ugu qaraabsanaa gabadha maxramka u noqon laha kuwii ugu sokeeyay ba gabdhihii ya qaati billahi ka taagayin ama dhaqan xumo ay dartood looga cabsanaya marka walaalayaalow waxyaabaha aan ku soo dhaqmanay ama hooyooyinkeen ama waalidiinteen ama xilliga hore lagu soo dhaqmi jiray waxa bedelayaa dhaqamo aan lahayn waxa bedelahayna waxa kamid ah dhaqanka magaalada iyo social media iyo waxyaaba maxaa la dhigi jiray aan fahmi karin aad ba idin salaamay walaalkan Cabdirasaaq ama ka baxaysa oo taqaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.